guddiga dowladda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ay u xil saartay baaritaankii la xiriiray qarixii 23 bishii January ka dhacay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo saareen warbixino la xiriirta baaritaankaasi ayagoo sheegeen in 11 qofood loo qabtay oo ku jiraan saraakiil arrimo la xiriira qaraxaasi kadib howlo baaritaano oo ay wadeen guddigii loo xil saaray in ay baaris ku sameeyaan cidda ka dambeysay qaraxii 22 bishii Janaayo ka dhacay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho ayaa maanta guddigaasi sheegay inay ku guuleysteen inay heleen xog rasmi ah oo ku saabsan shakhsiyaadkii lugta ku lahaa qaraxaasi shir jaraa'id oo maanta xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee kumaanda booliska ugu qabtay xeer ilaaliye ku-xigeenka koowaad ee qaranka Dr. Axmed Cali Abuukar ayaa ku faahfaahiyay dad ku dhow 11 ruux kuwaas oo la xiriirinayo in ay ku lug lahaayeen falkaasi qaraxa ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac in ay gacanta lagu soo dhigay falkii qaraxa ahaa ee dhacay 22 bishii Janaayo 2015 ka dhacay hotelka SYL arintaas maalintaas falkaasi dhacay laga bilaabo ilaa maanta oo ay tahay bisha Maarso 10 baaris ayaa socotay ilaa haddana way socotaa waxaana loo soo xirxiray dad lagu eedeynayo inay falkaas ama fududeeyeen ama wax ku lahaayeen ayaa loo soo eedeeyay inkastoo wali baaristii ay socoto oo aysan u noqonin mid kama dambays ah dadkaas loo soo xirxirayna hadda waxay jiraan oo loo gudbiyay xabsiga dhexe ee Xamar marka waa rajaynaynaa in ay baaristu si degdeg ah u soo gabagabowdo ciddii mas'uulka ka ahayd falkaasna ay halkaas ka soo baxdo ciddii aan dembi lahaynna maxkamadda horteeda laga sii daayo Dr. Axmed Cali Abuukar xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda loo soo taagi doono dadkan loo heesto eedeymaha la xiriira ku lug lahaanshaha qaraxii ka dhacay 22 bishii Janaayo hotelka SYL ee magaalada Muqdisho waqtigu qaanuunka ayaa xadidaya waqtiga waxaan la isleenahay kamaanaan gudbin waqtigii qaanuunku noo xadidayay waxaan aaminsanahay waliba inaan aad u dadejinay waa 40 dhowr maalmood waxaan aaminsanahay inaan aad guddigu aad u dadaalay oo uu aad u dadejiyay baarista marka loo fiiriyo dhacdadaasi qolayska ay leedahay waxaan aaminsanahay inaan aad u dadejinay haddana inta dhiman waxaan jecelnahay inaan aad u dadejin doono gabagabadii kiiskuna mar dhow uu dhici doono maxkamadda ku shaqada leh ama awoodda u lehna la horkeeni doono haddii alla yiraahdo Cabdirashiid Nuur Ibraahim telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.